waxay ku bilaabanaysaa iyadoo layna tusaya magaalo uu xilli kasta ka doo roobku sidoo kalena waxaa layna tusayaa nin uu ka alladaysan yahay baabuurkii uu watay oo lagu magacaabo baanon waxa kasoo degtay baabuurkiisa sidoo kalena waxa soo galay guri ku yaalay agtiisa isla markiina waxaa layna tusayaa guriguu soo galay inuu yahay guri cidla ah si kastaba ha ahaatee wuxuu aaminay meeshan inay tahay meesha keliya uu ku badbaadi karo waxyar kadibna wuxuu maqlay gudaha guriga inay kasoo baxaysa qaylo la yaab leh waxa soo koray qaybta kore ee guriga sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu fiiriyo dibadda wuxuu fiiriyay dibadda isla markiina wuxuu arkay bahal weyn oo lagu magacaabo neefelam isla waqtigaas waxaa layna tusayaa nin oday ah oo isqarinaya waxaana ogaanaynaa isaguna inuu ku jiro isla gurigan baanon wuxuu bilaabay inuu dhismaha guriga ku sameeyo baaritaan waxyar kadibna wuxuu arkay meyd yaala gudaha guriga si kastaba ha ahaatee wuxuu bilaabay inuu hartagalo ofiskii uu harnaa meydku wuxuu ka helay baastoolad wuxuuna bilaabay inuu gashto boorsadiisa sidoo kalena wuxuu ka helay telefoon wuxuuna go'aansaday inuu ka hadlo isla waqtigaas waxa sidoo kale gudaha dhismaha ka helay telefoon kale intaas wixii ka dambeeyayna wuxuu bilaabay inuu baaritaan ku sameeyo gudaha dhismaha isla markiina waxaa layna tusayaa inuu arkay nambar ku qoran derbiga wuxuu la soo baxay telefoonkii uu helay kadibna wuxuu bilaabay inuu waco nambarka balse nasiib xumo baanon wax jawaab ah ma uusan helin muddo kadibna baanon wuxuu yimi iskool ku yaalay agtiisa isla markiina wuxuu ogaaday hadda ka hor in iskoolkan lagu qabsanayay xaflad wuxuu fiiriya qaybta kore ee iskoolka isla markiina wuxuu arkay inuu layrku ku soo noqonayo isla markiina wuxuu bilaabay inuu farxo kadib markuu arkay qaabka uu layrku u soo noqonayo dhowr daqiiqo kadib wuxuu arkay qof dumar ah oo taagan hortiisa cabsi darteedna waxaa layna tusayaa inuu ku dhacay dhulka daqiiqada gudahoodna wuxuu ogaaday inay qasoontay haweenaydu kadib wuxuu bilaabay inuu soo aado dabaqa labaad ee guriga isla markiina wuxuu ogaaday in lasoo wacay telefoonka waxa soo wacay nin wuxuuna u sheegay in lagu magacaabo demiyam sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu baanon weydiiyo su'aalo baanon wuxuu ninka u sheegay dhowr asbuuc inuusan la kulmin wax bini'aadam ah daniyan wuxuu baanon u sheegay magaaladan inay ku nool yihiin dad halis badan sidoo kalena wuxuu u sheegay inuu ka taxadaro naftiisa dambayna wuxuu u sheegay inuu isku qarinayo dhisme ku yaala magaalada isla markiina demian wuxuu bilaabay inuu jaro telefoonka waxyar kadibna wuxuu bilaabay inuu soo waco mar kale wuxuu u sheegay inuu maqlay xabad ka dhacaysa agtiisa sidaa darteedna uu jaray telefoonka baanon isaguna wuxuu sheegay inuu maqlay xabadda ka dhacaysa agtooda taas oo ka dhigan labadoodu inay joogaan hal dhisme baanon wuxuu ninka weydiiyey meesha uu joogo balse wuxuu bilaabay inuu ku jaro telefoonka intaas wixii ka dambeeyey baanon wuxuu bilaabay inuu fariista dhulka sidoo kalena fiiriyo sawirada xaaskiisa iyo gabadhiisa isla markiina waxaa ku warhelay meesha inuu joogo nin aan laga aqoon si kastaba baanon wuxuu isku dayay inuu cabo biyo uu ka urursaday dhibcaha roobka qaagadu waxay ahayd wasakh wuxuuna isku ratay inuu cabo biyaha iyo in kale ninku wuxuu baanon ku yidhi haddii aad ka shakiday biyaha ha cabin wuxuu isku dayay inuu cabo biyaha balse isla markiiba waxaa soo wacay demiyam wuxuu ka raaligeliyey inuu jaray telefoonka sidoo kalena wuxuu u sheegay inuu maqlay qaylo la yaab oo ka soo baxaysa agtiisa si kastaba ha ahaatee wuxuu baanon u sheegay inay wada kulmi doonaan baanon wuxuu ninka u sheegay inuu watay baabuur balse uu ka alladaysan yahay demiyam wuxuu baanon u sheegay agtiisa inuu ku yaalo meel lagu gado alaabta baabuurka baanon wuxuu maalay tabaq ka soo baxaysa cirka wuxuuna bilaabay inuu fiiriyo isla markiina sidoo kale wuxuu maqlay qof dumar ah iyo ilmo yar oo ooyaya kadibna wuxuu bilaabay inuu soo galo meeshii ay ka soo baxaysay oohintu wuxuu soo qaatay tooshkiisa iyo baastooladiisa wuxuuna ogaaday waxaan inuu yahay bahal samaynayo codod kala duwan waxay isku dayay inuu joogto nasiib xumo uma aysan shaqayn baastooladu baanon wuxuu bilaabay inuu la cararo naftiisa nooluhuna wuxuu bilaabay inuu soo baacsado wuxuu bilaabay inuu isqariyo sidoo kalena dagaha qabsado maadaamuu nooluhu samaynaya qaylo la yaab leh waxyar kadib baanon waxaa soo baraarugay isagoo jiifa duur cidla ah kadibna wuxuu bilaabay inuu duurka ku sameeyo baaritaan waxyar kadibna wuxuu duurka ku arkay xayawaanka yeyda sidoo kalena wuxuu arkay nin oday ah oo samaynaya caada dhaqameed wuxuu arkay ninka odayga ah inuu gacmaha ku hayo ilkaha bini'aadamka baanon wuxuu dareemay xanuun isla markiina wuxuu ogaaday inuu ka dhacay iligiisu sidoo kalena wuxuu arkay noole la yaab leh oo ka soo baxaya iliga waxyar kadibna wuxuu ogaaday inuu joogo duur kale
oo cidla ah isla markiina wuxuu arkay nin jooga agtiisa oo gadaal u soconaya ninku waxa baanoon u sheegay inuu ku noqdo meeshii uu ka yimi daqiiqada gudahood waxa layna tusayaa inuu soo baraarugay waxaana ogaanaynaa inuu riyoonayay intaas kadibna wuxuu bilaabay inuu fiiriyo dibadda isla markiina wuxuu arkay iftiin guduudan oo kasoo baxaya agtiisa kadibna wuxuu bilaabay inuu cabo biyihii uu ka urursaday roobka si kastaba ha ahaatee waxa u soo baxay dibadda wuxuuna bilaabay inuu raadsado cunto waxyar kadibna wuxuu helay miro ku yaala geed sidoo kalena wuxuu helay daasad cunto ah waxyar kadibna waxa layna tusayaa inuu soo wacay Damian baanoon wuxuu Damianka u sheegay inuu haysto baastoolad balse aysan u shaqaynayn si kastaba ha ahaatee wuxuu u sheegay inuu hubiyo rasaasta ku jirta baastoolada si lama filaan baanoon wuxuu maqlay dhaylo kasoo baxaysa agtiisa Damian wuxuu sheegay tabaqle inuu samaynayo noole lagu magacaabo Nephilim isla waqtigaas baanoon wuxuu arkay laba diyaaradood ay wataan ciidamada militarigu wuxuuna ogaaday inay la dagaalamayaan bahallada baanoon wuxuu bilaabay inuu mar kale fiiriyo sawirada qoyskiisa isla markiina waxa kusoo booday ninkii u ekaa wuxuuna bilaabay inuu ka dafo telefoonka waxyar kadib baanoon wuxuu bilaabay inuu soo koro geed ku yaalay agtiisa waxa agtiisa ku dhacday habad ay rideen ciidamada militarigu sidoo kalena waxa ku dhacay dhulka kadibna wuxuu bilaabay inuu si degdega u soo gala guri ku yaalay agtiisa sidoo kalena wuxuu ogaaday ciidamadu inay qarxiyeen dhammaan dhismayaashii ku yaalay agtiisa ugu dambayna waxa si degdega u soo galay dhisme ku yaala agtiisa waxyar kadibna waxa ku warhelay nin joogay agtiisa baanoon waxa u soo dhawaaday ninka balse wuxuu bilaabay inuu ku qabto mindi maadaama baanoon watay baastoolad ninku wuxuu bilaabay inuu mindida dhulka dhigo kadib baanoon waxay isku dayay inuu ninka ka qaado boorsadii uu watay balse wuxuu bilaabay inuu la dagaalamo baanoon wuxuu bilaabay inuu ninka lugta ka dhaawaco sidoo kalena ka qaado boorsada nasiib xumo wuxuu ogaaday boorsada inay ku jiraan dhar duug ah sidoo kalena wuxuu ka helay biyo wasakh ah wuxuuna bilaabay inuu cabo isla markiina waxa layna tusayaa inuu aad uga murugaysan yahay biyaha wasakhda ah uu cabay waxyar kadib waxaa mar kale maqlay oohin kasoo baxaysa agtiisa isla markiina wuxuu ogaaday inuu yahay bahalkii oo isku dayaya inuu khiyaameeyo meesha waxa yimi bahalka baanoonna wuxuu bilaabay inuu isqariyo waxa dhacday xabad bahalkuna wuxuu bilaabay inuu ku mashquulo xabadda kadibna baanoon wuxuu bilaabay inuu kasoo baxo dhismaha si lama filaana meesha waxa yimi nin oday ah waxaana baanoon ku yiri wiilkaygii xagee jirtay sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu isku duubo baanoon oo yaaban wuxuu bilaabay inuu soo raaco ninka odayga ah ninka odayga ah waxa baanoon siiya cunto iyo biyo nasiib xumo wuxuu ogaaday waxa uu cabay inay tahay kaadi ninka odayga ah waxa baanoon u sheegay gabadhiisa inuu qaatay Nephilim sidoo kalena waxa uu sheegay inay xayawaanka u yeelatay uur waxyar kadibna baanoon wuxuu bilaabay inuu ka dhuunto odayga ugu dambayna waxa yimi meeshii lagu gadi jiray alaabta baabuurka nasiib wanaag waxa meesha ka helay baytarigii baabuurka wuxuuna bilaabay inuu soo qaato kadibna wuxuu bilaabay inuu la hadlo Damian waxaana u sheegay inuu baytarigii baabuurka sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu weydiiyo meesha uu joogo balse uma uusan sheegin jidka intii uu marayena waxa layna tusayaa inuu soo xasuustay wiil yar uu dilay xilli hore jidka intii uu marayay wuxuu ogaaday meesha inuu joogo bahalka wuxuuna bilaabay inuu la soo baxo telefoonkii labaad kadibna wuxuu ku riday baaldi yaale agtiisa wuxuu bilaabay inuu sameeyo jabaq bahalkuna wuxuu bilaabay inuu soo aado meeshii uu dhigay telefoonka wuxuu yimi meeshii uu yaalay baabuurku bahalkuna sidoo kale wuxuu yimi meeshii uu yaalay baabuurku nasiib xumo waxa layna tusayaa baytarigu inuu uga dhacay dhulka bahalkuna wuxuu bilaabay inuu soo weeraro si kastaba ha ahaatee bahalku waxa ku dadaalayay inuu u dhameeyo baanoon balse nasiib wanaag waxa ku warhelay xabad ku dhacday noolaha isla markiina waxa layna tusayaa meesha inuu yimi Damian wuxuu baanoon u sheegay war aanan farxad lahayn warkaasoo ah baytariga inay ka daadatay ay sii dhow isla markiina baanoon wuxuu bilaabay inuu murugoodo Damian wuxuu bilaabay inuu baanoon u soo kaxayo meeshii uu isku qarin jiray kadibna wuxuu u sheegay inay iskala qaybiyaan si uu midkood uga badbaado noolaha baanoonku ma uusan ganacsanayn inay iskala qaybiyaan balse wuxuu bilaabay inuu soo galo dhisme ku yaala agtiisa isla markiina wuxuu maqlay qaylada noolaha oo kasoo baxaysa agtiisa si lama filaana wuxuu arkay albaab ku yaala agtiisa ugu dambayna waxa layna tusayaa inuu u soo baxay dibadda waxyar kadibna waxa soo galay kayn ku taala agtiisa isla waqtigaas waxa layna tusayaa inuu arkay askartii oo la dagaalamaysa bahalada wuxuuna bilaabay inuu isqariyo wuxuu bilaabay inuu soo cararo sidoo kalena isku qariyo geed ku yaalay agtiisa wuxuu maqlay oohin kasoo baxaysa agtiisa wuxuuna go'aansaday inuu fiiriyo meesha ay kasoo baxayso oohintu balse isla markiiba meesha waxa yimi Damian
maalintii xigtayna labadoodu waxay bilaabeen inay ka baxaan magaalada. Damian waxa Bannon u sheegay inay raadsadaan ugaar ay cunaan. Isla waqtigaas Bannon wuxuu arkay biyo wasakh leh oo ku jira agtiisa waxaana bilaabay inuu cadbo. Kadibna wuxuu bilaabay inuu habaaro naftiisa. Muddo kadib waxaa layna tusayaa labadoodu inay soo gaareen meel ay joogaan Nephilim. habeenkii markii la gaarayna labadoodu waxay bilaabeen inay cunaan ugaartii ay soo dileen. Sidoo kalena labadoodu waxay bilaabeen inay iswaraystaan. Damian waxa Bannon ka codsaday inuu u dhiibo baastoolada uu wato, balse uma uusan dhiibin. Maalintii xigtay Bannon waxa soo toosay isagoo jiifa meel cidla ah. Si lama filaan waxa ku warhelay telefoonkii laga haday oo yaala agtiisa. Isla markiina waxa mar kale arkay ninkii odayga ahaa. Sidoo kalena waxa meesha ku arkay dhammaan dadkii uu laayay. Kadibna waxa go'aansaday inuu u dhameeyo odayga, balse isla markiiba meesha waxa yimid Damian wuxuuna bilaabay inuu toogto. Bannon isaguna waxa bilaabay inuu rasaasiyo Damian. Isla markiiba meesha waxa yimid Damian wuxuuna bilaabay inuu ilig ka soo tuuro Bannon. Bannon wuxuu ogaaday meesha inuu yimid ninkii uu dilay, sidoo kalena ka qaatay boorsada. Kadibna waxay isku dayeen uu dhameeyo Damian. Nasiib xumo Damian waxa la soo baxay qorigii uu watay wuxuuna bilaabay inuu lugta ka dhaawaco Bannon. Kadibna waxa bilaabay inuu cabo biyihii uu watay. ugu dambayna waxa